danjiraha dowladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Koonfurta Suudaan Mudane Xuseen Xaaji Axmed ayaa kulankan ula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Deng Elor waxa ay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan isagoo markaas safiirku u gudbiyay wasiirka fariin uu kaga siday dhigiisa Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad inta kulanku socday ayaa la isla soo hadal qaaday iskaashiga labada dhinac ee siyaasadda gobolka iyo doonista dowladda Soomaaliya ay doonayso xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD oo Soomaaliya sanadkan ay u sharaxan tahay dhinaca kale danjire Xuseen Xaaji Axmed ayaa safaarada Soomaaliyeed ee waddankaasi Koonfurta Suudaan ku qaabilay wafdi ka socday jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Koonfurta Suudaan iyo ganacsato kale kuwaasi oo u tagay magaalada Juba howlo ganacsi waxaana uu ballan qaaday in safaaraddu ay garab taagan tahay isla markaana uu ku dhiirigeliyay sidoo kale inay maalgashi ku sameeyaan Soomaaliya si shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Axmed Cali Kaahiye warbaahinta qaranka Muqdisho.